halkani waa Taar TV daawade ku soo dhawaada warkeennii labaad iyo barnaamijkeennii wax weydiin ogaal ka sheegne shan dalood u boqosho oon beledkeenna ahayn haddaad bowga jeclaato ama aad u bareedho waxa kuu basrinaysa reexan waa belanteenna laba waa isku baab waa beriga Afrikaan saddexna waa bari hoose waxa biiro ku raaca shixnada badankooda beledkoo dhan adduunka hadday taalo badweyn badqabka ugu dhex keenta baradaada dhexdeeda ee reexaan bowga u doono wararka ka soo deedamaya sida iyo waqooyiga Afrika ayaa sheegaya in dhibaato baaxad leh ay ka aloosan tahay dalka uumiyuhu badani ku dhaqan yihiin Nigeria waxa ay xoguhu sheegayaan in dalkaasi ay ka dilaaceen gaade aan waxba reebayn oo dadkii ka dhigay in joogta iyo in jiifta ciidanka nabadgelyada ee dalkaasi ayaa sheegay in gaaduhu waqooyiga dalkaasi ay ku warjaafeen 200 oo qof oo warmooga kuwaas oo dhammaan la isu la geliyay gaadahan iyo weerahan hadda bilowday ayaa dadka weydiisanaya gambooyin iyo caanteyno agabara ah ama baad wax lagu sheegay oo ay isku furtaan iyagoo haddii loo soo yuubi waayena la xaqiijiyay inay dadka rasaas u nacayaan weerarka dadka lagu laayay ayaa ka dhacay gobolka Zamfara ee waqooyiga dalkaasi halkaas oo la bitiyay in koox weerar hankaag wada ay ku soo kediyeen dad iska baraadla adablaydan wax kumaaday oo ka duldhookaysnaa mootada yar ee loo yaqaano dhugdhugleyda ayaa dadka sanka kaga tolay inay bixiyaan xoolo baad lagu sheegay taas oo markii ay waayeen iilka jiifiyey madaxweynaha Nigeria Maxamuud Buhari ayaa wax laga muraaro dilaaco ku tilmaamay waxa ay falayaan dooxatada dalkaasi ka kacday ee dadka laysay wuxuu sheegay in ciidanka nabadgelyadu daba jabin doonaan duulkan iimaanka beele ee wax hororaya ciidamada qalabka sida ee dalka Nigeria ayaa kala horteed weerar ku kiciyay kaymaha cuunka ee deegaanka Guzami oo ay dhabacanayeen sidoo kalena beerdhigaaleynaya shuftadan Ilaahay looga beebeysay ciidamada ayaa la sheegay inay weerar habas loo adeegsaday ku gabawareen 100 ka mid ah gaadahan oo ay ku jiraan madaxweyne ka tirsan burcadan dadku khaatiga iska taageen dalka Nigeria oo ka mid ah wadamada ugu dadka badan ee Afrika waxa in dhaweed ka soo baxay dar aan waxba reebeen kuwaas oo badi ku foogan kuna xoogan dhulka aanay dawladdu gaadhin ama ayda jiqda ee aanay cidiba foodgelin docda bariga dhexe sida uu baahiyay warsidaha jidka dheer ee dunida afka qalaadna lagu dhaho The Wall Street Journal qoliyaha sheegta qaramada midoobay ayaa jamhuuriyadda kacaanka Iran dhalada u saaray inay jabisay hubka qowlaladii lagu sameeyay dalkaasi kala hore jimciyadda guud waxa lagu sheegay qaramada midoobay ayaa iyaduna bitisay in baaruud iyo bir la qabtay lagu ogaaday in hal meel laga soo daabulay taas oo hadikad ku taala gudaha Iran qaramada midoobay ayaa sheegtay in xog dhab ah ay ku heshay sidoo kalena ay u bitiyeen dad xogogaalihi in Yemen iyo Soomaaliya ay soo gaareen huuriyo laga soo raray marsada jaarka ee dalka Iran kuwaas oo ku shaaxina baaruudda wax kumaada dadyowga midoobay waxay sheegeen in dabka iyo baaruudda Yemen lagu soo daadgureeyay lagu soo farsameeyay dalalka Iran Ruushka iyo diigaanyada Danbari ee Shiinaha sidoo kale waxay sheegtay in tiro aan yarayn oo saanada dabkaasi ay ku qabteen sidoo kalena ay taabka ka buuxsadeen ciidamada Mareykanka ee gaarka dabka leh ka haya badda cadmeed Iran ayaan waxa la celina ka samaynin eedda dhabarka loo saaray balse kooxda Xuutiyiinta oo la magac dhabay ayaa iyagu sheegay in warka qaramada midoobay yahay hufiya been waayadeed bay yiraahdeen dalkaba waxa ku jaban haadbiiri kaasoo la geliyay maadaama aanay waxba soo gelin waxna ka bixin qaramada midoobay ayaa gugii 2015 dalka Yemen ku soo rogtay jidingoyn dhanka dabka iyo baaruudda hase yeeshee jamhuuriyadda kacaanka ee Iran oo halka ay waabayda ka qaataan duulka guntiga gaaban ee Xuutiyiinta ayaa la bitinaya inay mararka qaar la soo tiigsato waxoogay qorqor rasaasa iyo armi jaaba tiyo inta badan ay xukuumadda Sacuudiga ku qaylisay in Tehran ay wax taarato Sanca waxaana la moodaa in maanta marageedii la furay si kastaba xaalku ha ahaadee waxaan la garanayn waxa Iran lagu ciqaabi doono maadaama kolkii horeba la leelsanaa labada biyo buuf wararka iyaguna ka imanaya magaalada Bandar Qasim ama Boosaaso oo hadda noqotay meel afdhiiga leh ayaa biniixiyay inay wax isku tuurtuureen ciidamada dawladda Puntland iyo fallaagada ilma diyaano ee BSF waxaa la sheegaya in israasaasaintani socotay amiin gaaban taasoo ka dhacday agagaarka xerada cawska ee ku taala Boosaaso sida uu shaaciyay taliska booliiska magaalada Boosaaso wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalkan uu dhex maray ciidamo uu watay agaasimaha magacaaban ee BSF Sareeyo Guuto Maxamed Amiin iyo kuwa taabacsan agaasimihii hore
taliyaha qaybta bilayska gobolka bari ee dowlad goboleedka Puntland gaashaanle sare Cabdiqaadir Jaamac Dirir oo u dibinjaaqay jibsinta af Soomaaliga ee idaacadda Mareykanka ee VOA ayaa ka warbixiyay dhacdadaasi wuxuuna xaqiijiyay in iska horimaadka uu ku dhintay hal askari mid kalena uu dhaawac soo gaadhay. Dirir ayaa sidoo kale shaaciyay in la raad gurayo siday wax u dhaceen isagoo tilmaamay in cidda bilowday dagaalka ay qaadi doonto mas'uuliyadda. Wuxuu sheegay in aan dagaalka labada dhan loo qaybin doonin ee la faambiyayo cidda iska lahayd daandaansiga taasoo aan looga jimcin doonin hadba dhanka ay ku aayooto kuna caddaato. Xaaladda ayaa haatan yara gamaartay wuxuuna dagaalkan ku soo beegmaya xilli uu horey madaxweyne Deni ugu baaqay xabad joojin si nabad loogu soo dabaalo xaaladda magaalada Boosaaso. Si kastaba ha ahaatee waxaa weli socda dadaallo ay wadaan mas'uuliyiin hore xilal uga soo qabtay Puntland iyo waxgaradka deegaanka kuwaasoo lagu soo afjarayo xiisadda Puntland iyo BSF iyadoo warar manaqata ahina noo sheegeen in fallaagada ilma diyaano ay daandaasiga kula soo jarmaada guddo ciidamada. ugu dambeyntii daawada waxaa galabta kolkii cadceedu badbadatay sidoo kalena ay sii hoobanaysay ceelka xamar ku soo ilaaday shir waayahan halkaas laga malaq boodhinaya oo u dhexeeyay dowladaha goboleedka Soomaaliya iyo waliba ra'iisul wasaare Roble. kulanka oo ahaa midkii ugu adkaa ee doorasho lagaga arrinsado ayaa tiro aan yarayn ama dhowr jeer qarka u gaadhay inuu burburo kadib markii la isku mari waayey qodobadii geedka la keenay. oosha carreedeg ee Soomaaliya ku soo yuubta baajeeriska iyo itatabiska sufriska iyo hafarka ayaa la sheegay inay ahayd cidda la weliyo in shirkaasi la baajiyo burburku iyo kalata ku yimaada. waxaa la sheegayaa in duulka carreedeg ay ku goodiyeen inay Soomaaliya uskaga ka goosan doonaan haddii la laabo gogasha loo fadhiyo. warqad galabta la soo maguujiyay oo lagu sheegay inay tahay wixii daawo lagu kala qaatay isu qoorlaabkani ayaan gebi ahaanba lagu soo hadal qaadin qodobadii la isku hayay ee muranka keenay. qodobadaasi ayaa waxaa ka mid ahaa arrinta amniga kuraastii la boobay iyo sida laga yeeli doono doorashada inta dhiman. qodobka nabadgelyada oo ah kii ugu kululaa ee geedka lagu gorfeeyo ayaa ahaa kii dhowr jeer la isaga soo dhigi gaadhay inuu burburo geedi socodka shirkaasi. dhinaca kale maamulada la jeeniga ah xabuudha villa Soomaaliya ayaa ku xil furay inaan farmaajo xilka laga qaadi karin. sidoo kale waxaa isna la isla garan waayay qodob labaad oo nabadgelyada taxdhiga kaas oo ah in xilka laga hudiyo taliyaha ciidanka Soomaaliya Odayaas Yuusuf Raage iyo taliyaha hay'adda xuraanka basaasnimo ee Nisa Yaasiin Farey. waxaana qodobkaas dhaar iyo tuxun ku maray labadan in abgaal ku abtirsadaa ee la kala dhaho Cali Guudlaawe iyo Cumar Finish oo sheegay in ooshooda abgaal loo dan leeyahay. sidoo kale waxaa isna la isla garan waayay in xaaraan lagu tilmaamo doorashooyinka ka dhacay Dhuusamareeb iyo Baydhabo oo lagu boobay wambaro tiro badan. waxaa la sheegay inuu taaliiqi waayay ninka lugta ka heediyay hebelka lafta gareen oo sheegay inaan doorashadaasi lagu laaban doonin. qodobada galabta soo baxay ayaa ahaa soo jeedin ay ka mid ahaayeen in gafuur culusta amisom xoojiso ilaalinta madaxtooyada in doorashada lagu soo eebiyo 40 habeen iyo in odayadii ab-ogaalka ka ahaa loo daba istaago soo malqaboorinta waxa lagu sheegay doorashada. dadka ka falceliyay waxaa galabta la soo gasangeeray ayaa sheegay in ay uga sii dari doonto doorashada waayadeed bay dhaheen ma istaagi doonto booligii iyo boobkii lagu hayay doorashadu. intaa warranay waxaanu ku darna ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegnay waa Maxamed Aadan Dirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante. saaca soo baxee dalka seelaye siigadii nabeesadka keenay ee seeraha noqdee saxalkii baxshee loo sara kacee sacab loo tumee saxansaxo noqdee oo la daba socdaa masafiinada. waa saba noqolee sida sagalka roob ama geeda sarow ama sabarra godan sohdan lagu ordee dadku daba socdaa baloga u sirtoo masafiinada. afarta baynajaho sayn cadiyo mid madow dalka wada maro bal safiina eeg sirta waad heliye. shirkadda duduucista dirista iyo weliba soo dejinta shixnadaha agabka ama adeegga looga jeel qabo socda iyo sabada aad joogto ee Safina ayaa lagaga yagleelay dhulkaaga hooyo. maxaad diri maxaad la degi maxaad se dalban oo dahaaran daboo la saaran. afarta baynajaho carreedeg waxay kaaga soo raraysaa shixnadda Safina Cargo goor kasta iyo goob kasta. Safina Cargo.